yaad is oran kartaa siyaasiyiin saameyn ku leh Soomaaliland baa kugu wehelinaya amba ururkaaga ka tirsan oo aad midna ma gelin waan la tartamay waan haray waan u hambaliyay waliba hambaliye kaliya maaha waxa la waxaan ku tacbo dhanaysan ku wareeji saan u muujiyo in maaragtay ana wax uqdada igu jirin inuu guuleysto eerkaan sameeyay adduunka aad aragtay ka wada dhigay iftiin ayaa waxa lagu yiri 99 jeer baad khaldanta maanta waad guuleysatay wuxuu yiri may intaba waa wada guuleystay mar walba waxaan baranayay wada aan leeyahay ku imaan karin wada aan yaa kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada waraysi kooban oo aan stuudiyaha telefishinka MMTV kula yeelanayno Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ama soo ugu caansan siyaasadda Soomaaliland maanta ayaa waxa uu kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa urur siyaasadeed la magac baxay Barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaan marka hore ku soo dhaweynayaa MMTV Dr. soo dhaw maanta waxaad kaga dhawaaqday magaalada Hargeysa urur siyaasadeed la magac baxay Barwaaqo ururkani muxuu kaga duwan yahay saddexdii urur ee hore aad Soomaaliland kaga dhawaaqday intii siyaasadda aad ku jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim horta anigu mar walba waxa mudnaanta ila dalka iyo dadka iyakan u rajeynaya nolol wanaagsan inay gaaraan marka xaashiyaha waxa lagu qoray qiimo weyn ma yeelanayaan haddii qofka hagaya waxaan ama ballanta qaadaya aanu hayn qofkii ka dhabeyn lahaa ama kii ku mudno waay marka ka duwanaanshaha wax kale maahane anaa ka duwan qof kasta oo kale ani wax baa iga gooxaya waay da saaxiibada kala dhaliilma iyakan wax kale ka gooxay kani waxa iga gooxaya inanka 9 bilood ku dhashay Yurub ana 9 bilood baan ku dhashay wuxuu gaaray maxaan gaari waay waxa iga gooxaya dad yar oo walaalaha oo dhan walba iskaga dhow maxaa kala qaybin kara xamidnimadooda hor istaagi kara waxa iga gooxaya inay meesha ka baxdo kuwii wax bartay inay gidaarada fadhiyaan oo maaragtay siyaasad ka sheekeeyaan islaanta miyiga joogta siyaasadda ka sheekeyso caaqilku siyaasadda ka sheekeeyo cid walbaba siyaasad lagu mashquulo halkii lagu mashquuli lahaa shaqo abuur iyo wax qabasho marka waxa iga gooxaya waan wanaagsan baan noqon lahay ummaddu waxay ugu baratay anoo dhakhtar wanaagsan way wali wax dhakhtarnimada igu caayo maarin haddana waxay ugu barteen anoo de wasaaradda xukuma ilaa hadda TV-yada kama arko wasiir maxanaha media wasiirnimada markaan ahaa dacaa iyo wax ka sheegay yaa marka haddaan kuwa muujiyayna wanaagsanaa waxaan aaminay inaan hoggaanka dalkana ku wanaagsanaan lahaa waayo layguma hayo shinan xaday layguma hayo qof aan si gardarraa ugu xadgudbay kasoo bini aadam aan dagafayo marka waxaan sidoo dalkaaga waad ka kicin kartaa waxaan aaminsanahay in hoggaan kastoo soo maray uu qayb qabto wanaagsan waayo haddaan mid walba midka kale ku wareejin dalkoo nabada yaa aadiya dalkoo midaysan haddaanu ku wareejin ka dambeeya ma helaan dal xukumo marka waxaa tir ah inaan gacan ku siiyo mid walba midka kale soo wareejin xisbigaaguna taasoo kaga duwan yahay ayaad leedahay waxa jira xisbi qaran oo wadanay leedahay oo murashax uu ka yahay musharax aad isku deegaantiin dad badan arintaasi waxay u arkaan ama aaminsan in musharaxaasi aad dabar jabin ku tahay arintan maxaad kaga jawaabaysaa iyada wallahi anigu waxaan wadanay la jeclay gool oo dhan waay shalay xabsi baan galay waxaan u galay ururada in la furo waxaan u galay xuquuqda asaasiga inaan la hor istaagin waay shalay saaxiibkay Axmed Siilaanyo ayaan kalarka isqabsanay soo u dhaweeyo in ururadii la furo waxaasoo dhan aan watay wadani baa iga dambeeya soo maaragtay abuuray haddana colaada iyo wax naxliya midna ma gelin waan la tartamay waan haray waan u hambaliyay waliba hambaliye kaliya maaha waxa la waxaan ku tacbo dhanaysan ku wareeji saan u muujiyo in maaragtay ana wax uqdada igu jirin inuu guuleysto saasoo kale maalintaas waxay dal dimuqraadiya oo qof walbaba waxaan u arkay xaq u leeyahay inuu tartamo maantana iyakana waxaan ka codsanayaa in dalkii wali sida yahay dimuqraadi yaa dadkiina xaqii inay tartamaan wali u leeyihiin wax kale oo dhibaato ma jirto Dr. Gaboose ururka maanta aad ku dhawaaqday Barwaaqo yaad is oran kartaa siyaasiyiin saameyn ku leh Soomaaliland baa kugu wehelinaya amba ururkaaga ka tirsan oo aad dadweynaha u sheegi kartaa anigu siyaasi hebel
waxaa dhici kara siyaasi hebel kula magac weyn inuu yahay kaan u haysto eeladaba inuu qayb ka yahay meel baa laga yaabaa inaan u haysto anigu waxaan raadinayaa waa qof ma raadinayo magac kaa qof damiir leh qof qiyam leh qof aqoon leh qof dalkiisa jecel looga baqayn ayaan raadinaya marka waxaan raadinayaa waa kacdoon cusub oo jiil cusub oo maskaxdoodu ka fiyowdahay qabyaaladan iyo qashinkan iyo corruptionka iyo balaayada inuu u noqdo weel qof kastoo siyaasadda ku jiray oon u arko inaan maaragtay de aan dareenkaygu isku dhow yahana de waxa way xisbiga kamalihi waa xisbi la wada leeyahay laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa jiilkii hore inaan anigu ugu dambeeyo jiil cusub oo dalka la wareego oo ka aragti iyo dareen iyo fakar bidii marka waxaad leedahay dhalinyaro aan hore siyaasadda ugu jirin baa keenaya ururka saas ma ay dhalinyarada fakarkaad u haysatid qofka dhakhtarnimadu qofku marka uu yar yahay marba wuxuu ciidamiyaa taabada ilaahay ugu talagalay marka 15 jir markuu yahay waxaa loo fasaxay albaabka khibradda nolosha inuu bilaabo 40 jir markuu gaarana shahaadada waxaa la siiyaa dal iyo dad adaa xukumi kara dal iyo dad ayaa xukumi kara nebi dhalinyaro waa yaryihiin oo ilaahay 40 jir ka hor uu magacaabay waayo waa bislaaday wey qofkii ayaa dhankii sabirka iyo dulqaadka waayo hoggaan ummadeed waa hoggaan u baahan dulqaad waa hoggaan u baahan maaragtay saamax waa tanaasub waa hoggaan u baahan wax badan marka dadka aan dhalinyarada raadinaya waa kuwa dalkan xambaari kari lahaa wey macnaha ya waa kuwa dalkan aqoon iyo qiimba ya iyo daacadnimada raadinaya laakiin muxuu ahaa hebel iyo hebel iyo hebel buudaanu mali waay دكتور محمد عبد قبوس دوان waxaad sheegtay si ay dad badan u fahmeen hadalkaaga in saaxadda siyaasadda aad ka baxday mar labaad inaad siyaasadii ku soo noqoto dadka qaar waxay u fahmeen in xukuumaddu ay dhabarka ay ku soo taabatay si muddo kororso oo meesha u yimaado sawirka noocaas jawaabteeda maxaad oran lahayd horta anigu dadka ururada furanaya iyo anigu aad baan kala doonaa in badan oo kamid ah waayo qofna buuggiisii baa yaalla de guri walba wuxuu yahay wuxuu ahaan jiray waxa marka ma filayo shakhsi Soomaaliland oo igu xaman karaa nin lagu shaqaysto nin maaragtay dabada laga riixo ma waxaan ahay nin aan ka gaban halkuu isleeyahay wanaagga ku jira waxaan marka xabsiga ugu galay wanaagga ku jiray muwaadinka in xaqiya oo tartamo waayo dhiig cusub baa wareegaya dadkii baa maaragtay fufamayo monopoligii baa laga baxay waxaan ugaga tegay madaxweyneyaal aan wasiirka ugu qiimaha badan ka ahaa waxay ahayd afkaarteyda iyo waxa iskeeni weeye afkaartey maahan lacag iyo nooc kale marka anigu ma eego shakhsi ee waxaan eegaa xaggee kula saxsan anigu waan ku hambalyeynaya musabixi xisbigiisaba iyo kuwii ka horreeya silaanyahii lahaa inay yihiin waayo aniga iyo kulmiya meelahan iska soo dhex galnaa oo waxa weeye taariikh halgan iyo xorriyado dirir baan leen marka de malaha taas baa iyakana ku keentay inaanay biqin inay ururada la furo mar walba aniguna aan raadinay ururada la furo marka cidna dabadaygama wada anaa is wadaa mabda'ayga wadaa dadnimadayda wada waay ugu dambeyntii ururada in la furo iyo in doorashada madaxtooyada la galo 13 November دكتور محمد عبد قبوسي midkeed soo lahayd dalka ugu muhiim tamay waxa weeyaan laba sharci baa yaal way marka bal waxaad weydiisaa su'aashaas saddexda gudoomiye xisbi weydii hadii doorashadu ku madaysan tahay November ama December tay doonto haate way ururada in la furo goormay midaysan tahay dhakay 6 bilood ka hor bay mudaysan tahay marka la isku dhaw oo doorashada ka hor 6 bilood doorashada ka hor bay mudaysan tahay way de marka hadii sharciga ku taal maxaa diidaya qodobka qoran ee sharciga ah ya walaalkay Cabdiraxmaan baa ku saxiix 6 bilood ka hor intaan laysinkiisu dhicin in ururada la furo musabixi kuma saxiixin marka wuxuu saxayntii gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha golaha baarlamaanka حزب شقكم على أرمان إن أور لفرين أنا لفرين سفيع لكن قولي وكيل هذا
ayaa ku saxiixan oo cod u siiyey in 6 bilood ka hor ururada la furo maxkamadda markii lagaga dhawaaqayay xeer 14 oo 6 bilood qeexaya ha lagu dhaqmo saddexduba waa saxiixan waayo midna ma diidi karo ya marka taa madaxtooyada sheegayaan hay-adaha khusaysa su-aasha weydii anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye war dalkan dastuur iyo xeer ma leeyahay ogolaanaya in hadda la ii furo ururada wax maaha aan alifayna waa wax qoran marka su-aasha aada oranaysa keebay kula tahay de waa markaan sharci jirin waxaan kaa codsanayaa oon ammaanayaa saaxiibkay maxamed cabdi ilig iyo dee ragga qiimaha leh halkan iskugu yimid waa xarun waa inay noqotaa cilmi baaris waxba miiska ka soo qaata computerka gal xeer 14 goormaa ururada la furaya su-aashaa keliya geli de haddii kaga soo boodo waxaa la furayaa 6 bilood ka hor maxaa muranka gashay marka aduu ka joog adaan ku weydiinayso maxaa muranka gashay wax qoran su-aashan waa tii ugu dambeysay 3 xisbi ayaa somalilan hadda ka jira ee uu ku doodaya in doorashada la galo marka laga yimaado xisbiga talada haya maahe labada mucaaradka waxay ku doodayaan in doorashada lasoo hormariyo oo ururada furashadooda ay dambeeyaan 3 xisbi doctore maxaad is leedahay intii 10 sano ay dalkan joogeen way khaldeen amba waa ka qaldantay oo ururkayga diyaar u ah inuu wax ka bedelo anigu 3 xisbi midna xumaan ka sheego anigu waxa aan ku kaliya ku socdaa in haddaan gaariga wadi lahaa dareenkaygaan ku shaqayn lahaa dadnimadeeda aan ku shaqayn lahaa aqoonteeda aan ku shaqayn lahaa diinteeda aan ku shaqayn lahaa dadkayga dacadnimadiisa aan ku shaqayn lahaa taasun baan iga khusaysaa ee qof iga horreeyey maaragtay dhaliishiisa iyo dhaliil la-aantiisa waxaan se bogaadin usoo jeedinayaa madaxweyne kasta oo soo maray dalkan mar haddii dalkii wada jira yaa oo kii ka dambeeya ku wareejiyey dee taasaa ka weyn wax walba waxyaalaha kale naga dhimana korriimaha shalay da-daadu in bay maraysay somalilan da-deeduna marba meel bay maraysaa maaragtay mandaqada aan ku hareereysanahay eeg waxaa dhibaatay balaayo ka holcaya mahad ilaahay baan ayaan joognaa ma aha anoo markii aan waayey dee kuma fakerin haddaadba weyday dhulku ha gorido iyo dadku ha ya hoggaanka saxda ahay waa ka sabir leh waa ka dulqaad leh waa ka tanaasul leh waa ka rajeeya himila ah dalkan iyo dadkan maalin baa xukumi doontaaye aada ugu timaadid iyakoo kii kaa dambeeyey ku wareejiyo haddaan wixiiba aan daadino maxaa markaa weelkiiba haddaan daadino maxaa marka anu waxaan leeyahay dadka reer somalilan oo aanan muddadii aan ka baxay dalkaba dibaddiisaba ay aada u yartay carruurteeda waxay yidhahdeen abe hanti baan haysanaya dee dubay meel walba waxaan ku idhahdaa berberaa ku geynaya cergaa baan ku geynaya dalkeena inaan jeclaanaa ka weyn inaan dalxiis dad kale samaysteen dee taa markaan dherigno haddaan doono aan yaa laakiin keena aan ayaa nacajibin kara marka bulshada waxaan oran lahaa maxaa ma aan khasaarin mar haddaan xataa mararkii hore kufay wax badan oo aan bartay baa jira wax badan oo aan badbaadiyo ururnimada xaqa aan u diray baa jira waa wada guulo waxaas iyaku waxay ka yihiin guusha ah inaan gaari waayey xisb kayrkaan sameeyey adduunka aad aragtay ka wada dhigay iftiin ayaa waxaa lagu yidhi 99 jeer baad khaldantay maanta waad guulaysatay wuxuu yidhi maya intaaba waa wada guulaystayoo mar walba waxaan baranayay wadda aan leydka ku imaan karin wadda aan yaa aan ku imaan karin marka buul baan rajeynayaa dadka gaar ahaan dhalinyarada iyo mutacalimka iyo qof walba waxaana ka codsan lahaa na garab gala maantay si aan idin garab galno mustaqbalka aada iyo aad ayuu mahadsan yahay doctor maxamed cabdi gaboose oo maanta magaalada hargeysa kaga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo la magac baxay barwaaqo doctore aada iyo aad baan kugu mahad celinaa thank you